رمضان قد أهله بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهله بالصيام أحاديث رمضان waa barnaamij aynu ku soo qaadan doonno qaar ka mid a axaadiidta nebiga sala allahu calayhi waaalihi wasalama ee uu uga hadlay soonka ama ramadaanta can cabdiraxmaan bni cabdilqaariyi annahu qaal kharajtu maca cumar bna alkhaطaabi radia allahu canh laylatan fii ramadaana ila almasjid فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله رواه البخاري وحلق وليي عبد الرحمن بن عبد القاري إن يري waxaan masaajidka habeen ramadaan ah la soo aaday cumar ibnualkhadaab mise waa dadkii oo koox koox kala tagtagsan ah ninbaa isagu keligii tukanaya ninna waa tukanaya waxaana la tukanayaa koox markaasaa cumar yidhi waxaan arkaa haddii aan kuwaas ku ururiyo hal imaam in ay ka fiican tahay dabadeedna wuu go'aansaday oo wuxuu ku kulmiyey ubay bni kacbin misena habeen kalaan soo raacay dadkiina ay qur'aan akhriyahoodii la tukanayaan markaasaa cumar yidhi alla bidcadani fiicana salaadda ay ka seexanayaan ayaase ka fadli badan midda ay u istaagayaan wuxuu ula jeedaa tukashada gelinka dambe ee habeenka dadkuna gelinkiisa hore ayay istaagi jireen bukhaari ayaa wariyey رمضان قد أهله بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهله بالصيام